sideebaad u raadin kartaa hal eray keliya desktop-ka ama my documents isaga oo kaaga maqan faylal fara badan ku dhex jira ama aadan garanaynin faylkii uu ka midka ahaa ereyga raadinaysid. haddaba ereyga xasuuso aad raadinaysid, faylasha aad ka raadinaysidna halka ay yaalaan xasuuso. kadib waxaad tagtaa qaybta raadinta ee Windows-ka, search isticmaal, waxaad tiraahdaa all files and folders, waxaad sheegtaa halka uu faylka kaaga maqan yahay, مثلا desktop waliba folderka uu kaga sii dhex jiro oo 44 ah ama desktop kaliya xulo. waxaad halkan ku qortaa ereyga raadinaysid. hadda waxaan raadinaynaa مثلا file ay ku qoran tahay Soomaali kaliya, ereyga Soomaali. faylkan desktop-kan ka raadinaya ereygaas ka midka ah Soomaaliya hore waan u qoray. marka aan raadino hadda si uu inoo siiyo ereyga, wuxuu soo saaray hal fayl oo ah percent complete. aan furno waa word file, dhexdiisa waxaan uga baahanahay inaan ka helno ereyga Soomaaliya ama ereyga Soomaali. waxaan raadinay Soomaali, wuxuu keenay qayb ka mid ah oo laakiin ay raacsan tahay Soomaaliya, laakiin sidii aan ka rabnay waa uu sameeyay, wuxuu raadiyay Soomaali. haddii faylal fara badan ay kaaga dhex dhumaan folder ama data fara badan, hal erey oo aad ka xasuusatidna uu jiro, kaliya open dheh my computer ama my documents, search ka taabo, all files and folders ka sii xulo, kadibna qor inta waxaad ku qortaa qaybta a word or phrase in the file ay ku qoran tahay, ku qor ereyga raadinaysid, kadib xulo folderka ka dhex raadinaysid, kadibna search leh. waxaad halkan ka sugtaa faylashii la soo helay ee faylka ee ereygaas uu ka mid yahay. waxaa idin soo gudbiyay Shan Hore Media iyo Martijar Education Center.